kuma tilmaami karno qiso waxaan dhihi karnaa khiyaano jacayl. Quruxda ayaa mararka qaar qofka waa ay siri kartaa, taasi oo ah qofka quruxda uu leeyahay marka uu kugu soo jiito in dhibaatooyin fara badan aad kala kulanto. Qisada waxa ay ku bilaabanaysaa sida tan: anigu cudurka aan qabo nin walba oo i rabo waan ku ridi doonaa aniga oo bilaa asxaan darro ah. Wax asxaan ah oo aan u samee doono ma jirto. Waa qiso dareen leh, taasi oo ka turjumayso qof walba ee ku soo biiraya nafsadaada, mise qof walba oo xiriirka jacayl ee quruxda badan kula wadaagayo inaad isku hubisid. Sababtoo ah quruxda waa ay ku qaldi kartaa qofka bini'aadankana waxaa laga yaabaa cudurro fara badan inay u qarsoon yihiin. Dhaqaatiirta iyo dadka cilmiyaqaanka inta badan waxa ay sheegaan labada qof ee lamaanaha ah markay isguursanayaan ama markay isku imaanayaan inay isbaaraan, taasi oo ah qof walba gaashaanka ee naftiisa uu ku badbaadi karo. Bini'aadan ayaan nahay, Ilaahay waxaan ka baryaynaa dhammaanteen nafsadeena inuu noo badbaadiyo. Wiilka qisadan ay ku dhacday nolosha oo idil ayuu caag ka noqday, mase wuu ka caakiray, taasi oo ah in noloshii waxba lama jiraan ah oo ka soo qaaday. Maalin maalmaha ka mid ah asaga oo maqaayad shaah ka cabayo ayaa maqaayaddii waxaa soo gashay gabar aad u qurux badan. Inta badan gabdhaha marka goobaha maqaayadaha ama magaalada u socdaan aad ayay isku soo qurxiyaan. Labiska wuxuu yahay kan ugu quruxda badan ee gabadha soo saaro. Sidoo kale kabaha ay wadato, boorsada garabka la surto, make-upka, ookiyaalaha, gabdhaha qaar aad ayuu kuu soo jiidanayaa. Dareenkaada waxa uu ku siinayaa in gabadhaas mar qura gacanta aad ku soo dhigtid si ay u noqoto saaxiibtaada. Wiilka shaahii durbaba waa uu dhameeyay, bannaanka ayuu sii tegay si uu ugu faa'iideysto gabadhan gaashaanta ah. Mar qura ayuu arkay nafsadiisa oo idil ayay gilgishay, waa ay beddeshay. Dareenkuna aad ayuu u soo jiitay. Gabadhii markay soo baxdayna waa ay fahamtay wiilka inuu sugaayo. Kadib telefoonka ayay u xariiqday, sidaas ayuuna xiriirkoodii jacayl ee quruxda badan uu ku bilowday. Gabadhii muddo markay wada socdeen, wiilkii wuxuu ogaaday gabadha inay tahay garoob. Wiilkii waxba kama soo qaadin ee waxa uu ogaaday inay gabadhu tahay gabar fiican. Xiriirka jacayl ee quruxda badan uu hayay ayaa nafsadiisa aad u soo jiidatay, taasi oo keentay in gabadha mar walba uu xiriiriyo. Hadduusan maalinka wicin 3